tukada oo saxo sooma rabadaanka saka la isku leeyahay xajkana socota dheeraada sad ninkii hela waa inuu sadaqad dhiibaaye waa inaad sinaan alxamdulillahi rabbil aalamiin wa salli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al khalqi ajma'in salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ولا ليال ولو حين نصعد برنامج كي تحناها أي نقوم قعدرني صلاة والنلل صلاتنا حياتنا صلاة دين والنلشين أما غير حياتك بالصلاة نلش هذا واحد كو هجاج صلاة دا هجاج انتيد ولا ليال صلاة أهمية يقيمه إذا وحيابها نتصي وحكمده أنها تلهمك الهمة العالية صلاة إنه الصبح يقلب يهبين بين تكن إنه السنة يفر الباء وحلقة فائدة يا قفكو إنه هنسر يشو أو تيكسدو ما لسر إنه تيكسدو ولذلك ayaa waxa la inoo jideeyay inaynu ku ducaysano ragcad kasto salaada kamida suuratul faatiha ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin ilaahay waxaad nagu hanuunisaa jidka toosan sirata alladhina an'amta alayhim kuwii aad u nicmaysay jidkooda ilaahay oo nagu hanuuni waxaad maalin walba ku ducaysanaysaa salaada dhexdeeda ilaahayow dadkii wanaagsanaa dadkii loo nicmeeyey ilaahayow jidkooda iyo wadadooda ilaahayow igu hanuuni yacni kuwaasaad qudwo iyo ku dayasho aad ka dhiganaysa kuwaasaad hiigsanaysaa oo aad tiigsanaysaa oo wadadooda aad raacaysa kuwa loo nicmeeyey waa kuwii أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كو إلهي ونعمي سيدا إلهي آيات سورة النساء وكبياميي والنبي ذا الشهداء كو جدك الله دنتي الصديقين كو إيمان كبضن أرهمين تبضن الصالحين كو ونكسن إذن صلاة وحا أستانوا in lagu daydo dadkaas wadadoodana la hayo la tiigsado wanaagoodii iyo camalkoodii wanaagsanaa laqad kaana lakum fii rasuuli illah uswatun xasana ku dayasho wanaagsan in laga dhigto waa waxaynu salaada ka faa'iideyno oo salaada laga dhaxlayo alhimma alcaaliya hankaagu inuu sareeyo waxyaabaha saraysiinaya waxaa kamida wujuudu namaadij walmuthul alculya example iyo tusaalayaal iyo cid lagu daydo iyo hoggaan aad eeganayso in waxa weeye la helo salaaduna ragcad kasta way ku xaqiijinaysaa macnaha noocaasa waxaa kamida walaalayaal salaada qiimaheeda waxaa kamida annaha tuutika asalaaxa shaamil inay ku siinayso wanaag iyo hagaag xaaladahaago dhan salaaddu waxay kuu diideysaa xumaantay kuu diideysa ina الصلاة وأqim الصلاة ina الصلاaةa تنهى عan الفaxshaaءi والmunkar salaada sidii la doonaya hadii loo ogo ilaahay waxau uhi وأqim الصلاة وصli lama odhan tukada lama odhan salaada hadii la ogo oo siday tahay loo tukado salaadaasi تنهى عan الفaxshaaءi والmunkar qofka waxay u diideysaa ka joojinaysaa ka hor istaagaysaa wax allaale wixii xumaana iyo wixii munkare dadku ay diidaan sharciguna diido ayay qofka ka hor istaagaysaa oo qofku markuu tukado salaada siday tahayna uu u tukado salaad lagu khushuucay uu la yimaado salaada waxa uu odhanayo iyo waxa uu samaynayo fahansan yahay waana taaynu barnaamijkan uga jeedna insha allahu tacaala uu ka dhaxli doono markuu xalaqaadka dhamaysto
qofka noocaasa salaadiisu waxay ka reebaysaa xumaan iyo munkar oo dhan bay u diideysaa. amaa salaadu haddii ay tahay iga gee, salaad galabgalaba hadday tahay, salaad qofku aanu la socon waxa uu odhanayo, waxa uu samaynayo, qalbi moogan haddii lagu tukanayo, waxay imanaysa salaada dhexdeeda qofku inuu qorsheeyo macaasi iyo dunuub inuu qorsheeyo ayaa ka dhalanaysa. nabigu wuxuu uhi calayhi الصalaaةu wasalaam أwalu ma yuxaasabu bihi اlcabdu ywma اlqiyaamati salaatuh fain saluxat saluxa saa'iru camali wain fasadat fasada saa'iru camali. waxaa ugu horeeya maalinta qiyaame addoonka wax laga weydiinaya ee lagala xisaabtamaya waa salaada. haddii salaadu ay hagaagto camalada kalena waa hagaagaya, haddii salaadu ay qofka ka xumaatana camalada kale waa ka xumaanaya. hadduu salaada saagsaago, waktigeeda ka bixiyo, salaad waxa weeye aan macno badan lahayn isagana ugu fadhiyin, aanu ku khushuucin uu la yimaado, camaladiisa kalena waa saameynaysa. hadduu salaada hagaajiyana camalada kale waa hagaajinaya. cumar bn اkhaaab radia allahu tacaala canh, alkhaliifaة الraashid, markuu shaqaalihiisa dunida daafaheeda u kala diro, barsaabyo, mas-uuliyiin, mucalimiin, kuwa xilal haya oo dowladii islaamka, khilaafadii islaamka u adeegaya, markuu dunida daafaheeda u kala dirayay, wuxuu odhanaya unduruu salaata. shaqaalihiisa markuu la hadlay, mid walba salaadiisa ha eego, salaadiisa ha la eego. hadduu salaada hagaajiyo, xilkaa loo igmadayna waa hagaajinaya. hadduu salaada dayacana fahuwa lima siwaaha adyac. hadduu salaadii alle ka soo bixi waayo, waxyaabaha kalena waa dayacaya. yacni xilalka aanu u dhiibanay iyo mas-uuliyaadka aynu u dhiibanay, taana waa u dayacitaan badan yahay mar hadduu xaqii weynaa ee alle subxaanahu wa tacaala uu ku lahaa uu dayacayo, xaqa bini aadamkana u daahimaya waa dayacaya. walaalayaal, salaadda waxaynu ka faa'iideysanaynaa alislaax ashaamil, inay ku hagaajiso macaasida kaa hor istaagto, inay ku hagaajiso camaladaada hagaajiso, inay raad wanaagsan kugu yeelato, camalkaaga iyo cibaadadaada ku yeelato, ayaynu salaada ka faa'iideynaa. taasina waa qiimo aada u weyn oo salaada laga helayo. walaalayaal, salaada ahmiyaddeeda waxaa ka mid a inay tahay, haddaynu siday tahay u tukanno, meel aynu ku qabowsanayno, aynu ku raaxaysanayno, aynu ku nasanayno, indhadoogsi inoo ah, qalbi qabow inoo ah, qofku walwalka iyo walbahaarka uu kaga nasanayo, waa haddii siday tahay uu tukado. nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam salaada aqimadeeda marka la gaadho wuxuu ku odhanaya bilaal, aqim الصalaaة naadi bالصalaaة arixnaa biha ya bilaal. bilaalow salaada noo qiim, salaada noogu raaxee, bimacnaa salaada aanu ku raaxaysano. ma odhanay nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam arixnaa minha, salaada nooga raaxee, aanu iska ridno, faralka aanu iska tuurno, aanu ka takhalusno, aanu iska dhammayno. waxa weeye nabigu ma sameynin calayhi الصalaaةu wasalaam. markuu salaada qalbi soo jeeda uu ku qaabilay, waxa uu odhanayo iyo waxa uu samaynayana uu fahmay, nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam bay salaadiisu dhadhan iyo macno u yeelatay. wuxuu leeyahy nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam jucilat quraةu cayni fi الصalaaة, waxa aan ku indha qabowsanayaa waa salaada wey. wuxuu uhi nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam xubiba ilaya min dunyaakum aلطiibu والnisaa. adduunyadan aynu joogno laba shay baa lay jeclaysiiyey, waa dumarka iyo cadarka. labadaasaan jecelahay howlaha adduunyo. indha qabowsiga waxaan ku indha qabowsanayaana ee aan ku farxayaa ee laabtaydu ku degayso, indhahaygu macaansanayaan ee ku qabowsanayaana waa salaada buu yihi nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam. idan dumarka iyo cadarkoo nabigu adduunyada ka jecel yahay, waxaa kala weyn oo indha qabowsiya
waayo shay kastoo aad jeceshahay indha qabowsi kuuma ah laakiin shayga aad jeceshahay indha qabowsina waa kuu yahay waadna jeceshahay salaadiiba sidaa laga yeelay waxaynu doonaynaa salaadeenu indha qabowsi inay noqoto meel qofku uu kaga badbaado walwalka iyo walbahaarka uu ku tuuro meel naxariis iyo xasilooni iyo deganaansho iyo kalsooni iyo qabow uu waxa weeye ka helo salaadeenu inay noqoto sidii salaadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa loo baahan yahay waana waxyaabaha xalaqadaha soo socda insha allahu tacaala aynu la kaalmaysan doono biidni اllahi caza wajal xayaakum allah astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakatu